السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صوماليدا بالكسو عرورة فيسبوك كسو عرورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمانتين دادك صاحبة ولا لها فانسكا دمان انت مقالكيغا iyo muuqaalkayga taqaano waan idin wada salaamay. waxaan rabaa inaan ka hadlo arin yar oo xasaasiyo maxaa la isha shalay ilaa habeen hore ilaa maanta qabsatay Facebook oo wax saas u sii weyn aan ahayn oo muhiim yar inaan ka hadla rabaa soo waa ina soo wada gashaan moodo joogtaan mana ima qashaan saddex boqol ku jirto hadda soo wadan galay. Okay, waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta maxaa la isha sanad guurada arooskayga oo aan sameystay xalay habeenkii ka horeeyay maxaa la isha oo hal sano ka soo wareegtay xaflad baa sameysanay anigii xaaskayga maxaa la isha xafladii bay dadka maxaa la isha inta ugu badan dadka ay hadal hayeen. waxaan rabaa inaan arintaas wax yar oo maxaa la isha muhiim inaan idin ka dhaho dadka i daawanayo dhan. waxay tahay arintaas yar oo muhiimka oo rabay inaan idin ka dhaho maxaa la isha horta xafladda waxa aan anaga dhiganaynay waxay ahayn aroos waxay ahayn sanad guuro maxaa la isha wax aroosna wax ma dhaamin waxay ahayd sanad guuradeeda koowaad arooskayga kale ahayd oo anaga marka is aroosna wax xaflad iyo maxaa la aroos iyo waxas maanan dhigan oo wax markaas oo muhiimna lama sii noqon laakiin waxa muhiim nala ahayd inaan xaflad dhigano oo maxaa la isha sanad guuradii baan dhiganay. sanad guuradii maxaa la isha waqti fiican baan ku wada qaadanay waqti maxaa la isha qurux badan baan ku wada qaadanay waqti ma sha Allah oo laga sheekay baan ku wada qaadanay. sidaa darteed waxaa dhacday sawir in laga soo qaaday sanad guurada anaga aan dhiganayno. waxaan sameynay maxaa la isha toortadii baan afka isku gelinay waqtiga toortada markii la gaaro waqtiyada ugu dambeysay ahayd toortada markaan afka isku gelinay maxaa la isha waxaa dhacday inaan is shumino oo hal mar aan is dhunkano. taasi marka macno weyn ma ahan ma keenayso macno gooniya oo laba qof oo nin iyo xaaskiisa ah ee isqabo ee awlaad leh ee maxaa la sanad guuradii arooskooda iyo farxadoodii iyo maxaa la isha meeshan u jooga inay waqti qurux badan wada qaataan weligood baa inta reer magaala iyo inta Soomaaliya iyo dadka dhaqankeenan maxaa la isha yani aroosyada la yaqaano ay wada og yihiin in maxaa la dhahay isha ninka iyo naagta isqabo markay maxaa la isha toortada jaraan inay afka iska shumiyaan ina afka iska shumino wax macno gooniya oo maanta iyo ceeb gooniya iyo maxaa la isha wax madaxa la qabsado oo a'uudu billahi minash shaytaan rajiim la dhaho oo maanta laga wada yaabo oo ah oo gooniya ma jirto. maxaa la isha aniga naagtan shumiyay ama gabadha aan shumiyay ma aha gabar islaameed ma aha naag aan wada iska soo raacnay ma aha naag maxaa la isha oo islaameed oo maxaa la isha oo friends aan ahay waa xaaskayga xalaashi ahayd haddaan afka ka shumiyo intaan toorto jarno anagoo farxad ku jirno maxaa la isha haddaan afka iska shumino wax macno gooniya oo maxaa la isha oo ma keenayso ceeb gooniya ma keenayso. sidaa darteed maxaa la waxaan rabaa dhalinyarada qaladka aamintay faaniska ah ee walaalaha ah ee dadka Soomaalida oo dhanba maxaa la isha Facebook wada inaan u sheego in arintaasi ayada ah ay ahayd wax markaasi inaga markaan isku imaanay ee toortada aan jarnay hal mar afka iska shumino weligeedii alheedaan la arki jiray dad isqabo oo dadka ama aday aroosiin ama haddii sanad guur dhiganay ama haddii farxad ka dambeysay inay dadku maxaa la isha markay toortada jaraan waqtiga toortadooda la gaar inay hal mar afka iska shumiyaan si caadiyan maxaa la isha xafladooda ugu soo dhamaato. marka waxaa la sameeyay waxaa laga soo duubay videogaas hadda wax idin ka leeyahay videogaas wax maxaa la isha waqti saas u sii dheer ma uusan ahayn soo wuxuu ahaa videoga markaan toortada saas u jarnay hal mar baan dhac sina waa sii kala tagnay sidaas baa waxaa laga dhigay videoga inta la soo qabtaa waxaa lagu furay story oo maxaa la isha in waxaa laga dhigay wixii 10 daqiiqo ay yihiin oo isku soo dhawaanayaan ee hal mar afka isku haayaan ee isdhuuqayaan ee haddana maxaa la isha sii kala tagaan wax dhuuqmal la horta meesha ma oolin maxaa la isha waxaasina waa anshax darro waxa idinka anshax darro ka dhigaysan dhuuqmada aad sheegaysan waxaas horta wax meesha yaala iyo wax meesha ooli karayba ma ahayn shumis yar u ahaa sidaas taasna farxada naga keentay wax oo maxaa la isha maanta oo saas u sii weyn nin yahow xaaskaaga maxaa u shumisay nin Kacbe iyo Madiina gubay maxaa la isha nin Madiina gubay
aniga iga dhigan waxa ah nin maxaa la isha waqtigaas maxaa la farxadeed hal mar xaaskiisa shumiyay wax weyn taas ma keenayso marka halka dhib ee ugu weyn ee meesha ka taagan baan rabaa horta inaan hal mar idin sheego waxa jira oday maxaa la isha waalan oo jinni ku dhacay gabadha ama siiyo maxaa la horta oday jinni ku dhacay jira oo waalan oo ilaahay cadaabkaas ilaahay horta cadaabka waaba geenayaaba oo maxaa la isha qaatumadii gabyay maxaa la isha asagii oo dhan wuxuu ku soo aruuray inuu maxaa la ciyaalka u dhali karo hari habeen oo la tirsado oo maxaa la isha u la caaytamo marka waa odag la daari caliso maalin hore waxaan sameeyay runtaan ka sheegay intuu yimid aan runta ka sheegay wallaahi oo billaah inaan been idin sheegay wuxuu gaaray heer dhalinyarada saaxiibada ahayn oo isla soconay inuu midba maalin intuu soo waco uu yiraahdo hey assalaamu calaykum wa calaykum assalaam hebel ma tahay haa waa aniga waa daahirkii asaga ah haye maxaa u baahneed walaalo waxaan rabaa inaan arrin ii jisho maxay tahay arrintan kuu jilaayo inaad samayso maxaa la ii sheeg ninka dayax liraa soo saaxiibo matiin haa soo best friends matiin haa waxaan rabaa inaa u dan sheegato si beena inaa maxaa la ii sheeg ugu dan sheegato oo aad tiraahdo maxaa lahaa waxaan rabaa inaa dayax kula noolaado oo gurigaaga joogo oo anaana waxaan ku siinaa bil kasto waxaan ku siinaa ii sheeg biilkaaga iyo maxaa la ii waxa ku noolaan lahayd aan ku siinaya waxaan rabaa inaa gurigiis inta tagtid oo maxaa lahaa waqtiga nasiinada ama sida caadiga guriga filimka la daawanayo ama halka nigiska uu wato ama waxaas uu wato inaan sawir iiga soo qaadi oo sawirkaas iiga soo dirtay ninkaas dagaal oo igula jiraa saano u yeelay waxaan rabaa inaa maxaa la ii sheeg dadka aan ku ceebay inaan saas yeelo horta adeer ilaahay ku naxariisto ilaahay qaatumadaada ku soo celi ilaahay ha ku maxaa la ii sheeg wixii dhibka ku haysto dhib baa ku haystee ilaahay ha ka dulqaado wax kale oo ka hadlaya ma jiraan arrinta muhiimadda ahayd oo maxaa la ii sheeg dhalinyarada qaladka fahantayna walaalayaal gabadh asxaaskayga ahayd hal mar baan issuminay waxaan sameeynay waqtiga toortada la jaray ee farxadeena ahayd soo maahan muhiimadda aan fiidiyowga soo galay oo fiidiyo soo duubay intaasay ahayd arin waxaan rabay inaan idinka jaahil bixiyo maadaama aan wax badan maxaa la isha isku wareeriso social media ay wadwadeen waa mahadsantiin idinkana ilaahay ha idin sharfo ilaahay ha idin karaameeyo khayr allah idin siiyo waana mahadsantiin mac salaam